madaxweynaha dalka Burkina Faso Ibrahim Traoré ayaa markii ugu horeysay toddobaadkan si kooban uga hadlay shirqoole la doonayay in lagu kharajiyo. madaxweyne Ibrahim Traoré oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri sidan: waxaan ka badbaaday in ka badan 10 shirqool oo lagu kharajin lahaa, laakiinse ma sheego sababtoo ah ma doonayo inaan dhiirigeliyo cadowgeena ama ay dadka qaarkood ii arkaan inaan anigu xayeysiis samaysanayo. asalka cadowgeena waynu naqaanaa, dhibaato wixii ay awoodaan in aanay waxba inoola harayn waynu ognahay. waxaanse ka xumahay in wadamo dariskeena ah oo gobolka ah la soo dhex marayo oo ay arrintaasi qayb ka noqdeen. waxaa jirta xigmad tiraahda, haddii aad doqonkaaga iska disho waxaa ku dili doona berito mid doqonkiisa wata. bal fahma idinku, arrintaas waxaa aad u aaminsan oo ku dhaqma reer galbeedka, waxaana caddayn u ah waxay inoo soo diraan doqomadooda si ay macno ugu sameeyaan. reer galbeedku dhammaan safiirada, madaxda hay-adaha iyo siyaasiyiinta ay u soo diraan Afrika waa kuwooda ugu liita, waa doqomadoodii oo ay soo qurxiyeen oo ay xeel u soo dhiibeen. laakiin adiga Afrika waxaa lagaaga dhigayaa faylasuuf duni kale ka yimid. doqontooda haddii aynu ka horgeyn lahayn doqomadeenna, nasiib xumo Afrika intaanba doqon la gaarin waxay laysaa haldoorkeeda si ay u sii indhabeesho. sannado gudahood waxaan ka badbaaday in ka badan 10 shirqool oo lagu kharajin lahaa. inta badanna faalla kama bixiyo arrimahaas arrimo jira awgood. waxaanse hadda idinku sheegay inaad ogaataan jiritaanka arrintan iyo in iimaanlawayaashu aanay raalli ka ahayn waxaad doonaysaan iyo baraarihiinna. aniga shakhsiyan inay idilaan qorshahoodu ma aha, ee waxa ay rabaan inay dilaan hamiga iyo rajada Burkina Faso, maadaama anigu aan xisaabsanahay fariinsidihii ummadda Burkina Faso. quwadaha galbeedka badankood markaad fiirisid habdhaqankooda iyo fikradooda ku aadan dunida kale waa argagixisanimo. kaligay aan noolaado, argagixiso aan iyaga ahayn ma jirto haddii la yidhaahdo runtii laguma gefin. dadka Burkina Faso waxay go'aansadeen inay la dagaalamaan argagixisada reer galbeedka si ay dib ugu bilaabaan horumarkooda. waxaan jebin doonaa xiriir kasta oo nagu sii hayay addoonsiga casriyeysan ee reer galbeedka. cid gaar ah inaan raalli gelinno la inooma abuurin. uma safri doono si aan u soo tuugsanno dad la mid ah oo aan xitaa haysan wax naga fiican. waxaan waqti gelinaynaa inaan si karaamo leh u iibgeyno khayraadka ciiddeenna innagoo aan uga marti noqonayn shisheeye. aamin, Burkina Faso waa dhul qani ah, laakiinse u baahan rag hal adayg iyo caqli u saaxiiba. waa in aynu abaalmarin u siino dadkeenna halgamay ee diiday dulaysiga, in aynu u rumayno riyadooda. runtii wax kale kama shaqaynayno aan ka ahayn inaan dadkeenna ka saarno saboolnimada ay abuureen gumaystayaashu. waa inaynu meesha ka saarno naanaysta ah hantiilayaasha baahan. sannad gudihii waxaa laga midho dhalin doonaa 4 mashruuc oo la xidhiidha wax soo saarka khayraadka beeraha iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo aan filayno inay abuuri doonaan ilaa iyo 6,000 oo shaqo. waxaan ku riyoonaynaa Burkina Faso inaan gaarsiino heer inay noqoto deeq bixiye gobolka iyo Afrikaba wax tarta. kaasina waxa uu ahaa madaxweyne Ibrahim Traoré. madaxweyne Ibrahim Traoré ayaa hadalkan ka jeediyey shirweyne loogu magac daray Burkina Faso ka dhig deeq bixiye.